طلعين ورقتنا اسكم على عقلي يوهبسينا دبلوغا يا عدنا إرسن مايه عدنا إرسن مايه عدنا إرسن مايه عدنا إرسن مايه saaka markii aan isku dayay inaan imaado kulanka albaabadu u xiran yahay ee shir madaxeedka ciidamada ammaanka ee Itoobiya ayaa is hor istaagay halkii aan mari lahaa waxa ay ii diideen inaan hoteelka ka soo baxo oo aan gaadiidkayga ku aado halka uu shirka ka dhacayay waqti dheer ayay igu qaadatay inaan halkaas joogo ugu dambeyntii waxa aan ku imid gaadiidka madaxweyne kale mar kale markii aan nimid xarunta midowga Afrika annaga oo laba madaxweyne ah madaxweynaha Djibouti iyo aniga ayaa mar kalena laga hor istaagay in aan galno xarunta midowga Afrika askar qoryo wadata ayaa horteena istaagtay waxa ayna inoo diideen in aan hoolka gudaha u galno dhaqankaas ayaa ahaa kii aan ka aragnay keligayna ma ahayn ee madax kale oo sidaas oo kale loo galay ayaa halkan joogay run ahaantii waa arrin aad looga murugoodo bahdilka ku dhacay wafdigii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee uu hogaaminayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud hore ayaan uga hadalnay intii aanu markaasi madaxweynuhu ku tagin booqashada ama se uuna ka qayb galin shirkaasi ka dhacayay caasimadda dalka Itoobiya oo ahaa shirweynaha ururka midowga Afrika halkan wararkii kuwan ka horeeyay ee aan idinku soo baahin ayaa ahayd in dawladda Soomaaliya ama se madaxweynuhu uu go'aan ku qaato inuu shirkaasi ka qayb galo inay bahdil iyo dhaawac ku tahay karaamada iyo sharafta qaranka Soomaaliyeed maadaama dawladda Soomaaliya hore ay u sheegtay Itoobiya inay tahay cadowga koowaad maadaama Itoobiya ay ku xadgudubtay qarannimada iyo madax bannaanida dalka Soomaaliya maadaama ayna wax garawshiya haba yaraatee ayna ka bixin intaasi oo dhan iyada oo ay jirto in madaxweynaha Soomaaliya dalkaasi uu tago oo uu kaga qayb galo shirar kamid ah shirarka caalamka waxa ay ahayd tallaabo siyaasadeed oo markaasi ka baxsan nidaamka diblomaasiyadda ama si aanu adeegaynin karaamada iyo qarannimada Soomaaliyeed go'aan lama filaana ayay ku ahayd siyaasiyiinta u dhun daloola arrimaha noocan ah halkan ayaa markaasi aan ka sii sheegnay dadka aad uga fahamsan siyaasadda waxa ay soo dhaweynayeen go'aankii hore ee madaxweynuhu qaatay ama se la sheegay dawladdu inay go'aansatay oo ahayd kursiga shirkaasi ay ku leedahay inayna banaynin balse ay ka qayb galaan waftiyo heer hoose ah oo ka kooban wasaaradda arrimaha dibadda iyo marka la gaadho inuu ku filan yahay inuu ka qayb galo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya taasina ay noqon lahayd fariimo culus oo loo dirayo Itoobiya iyo guud ahaan beesha caalamka laguna muujinayo mowqifka Soomaaliya iyo sida ay uga horjeedo faragelinta Itoobiya ay ku samaysay ma dhicin dabcan go'aan waali ah oo aan laga fiirsan ayaa madaxweynuhu qaatay oo inuu shirka ka qayb gali doono wuxuu ku sababeeyay kulanadaasi inay muhiim u yihiin dalka Soomaaliya wuxuu sheegay kulankan iyo kulan kale oo igada inuu ka qayb gali doono iyadoo kulankaasina uu yahay midka Itoobiya ay codsatay intaasi oo dhan ayaa markaan waxyaalaha sababta u ahaa ay ka mid noqon doontaa oo aan ka hadli doono balse hadda haddii aynu u soo noqon warbixin badan uma baahna qaabka maanta ay u dhaceen bahdilka ku dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha ayaa hadda carabkiisa ka qiray markaasi bahdilka weyn ee lama filaanka ah ee ku dhacay wafdigii uu hogaaminayay balse waxa aad iyo aad wax looga argagaxa saacado kooban intaasoo bahdil ah inay ku dhacaan wafdigii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hogaaminayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba inta aynaanu gelin sababaha keenay bahdilkan inuu ku dhaco wafdiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud bal hadda waxaynu wax yar dul joogsan doonaa bahdilaadahan dhaawaca weyn u geystay karaamada markaasi dalka Soomaaliya ee ku dhacay madaxweynaha iyo wafdigii uu hogaaminayay oo markaani sida madaxweynuhu afkiisa uu ka sheegay waxa halkaan marka ka soo baxaysa bahdilaada hadda dhacday inay laba qaybood tahay
qaybta koowaad waxaan oran karnaa waxa ay marka hore si toos ah uga timid dhinacaas iyo Itoobiya oo wafdigaani uu marti u ah isla markaasina marti gelinayay shirweynaha ururka midowga Afrika balse waxaa jirtay markaasi bahdilaad uu madaxweynuhu gacantiisa ku sameeyay oo la oran karo madaxweynaha ayaa laftiisu gacantiisa isku gowracay taasi waxa ay tahay sida madaxweynuhu uu qirtay hadiiba Itoobiya ay markaasi adeegsatay awoodaheeda ayna markaasi bahdilaad ku samaysay wafdiga mar labaad ayaa Itoobiya haddana ay adeegsatay bahdilaad dadban waxa ay soo adeegsatay madaxweynaha Djibouti oo isagu markaasi madaxweynaha Soomaaliya u tagay oo uu sheegay madaxweynahaasi inuu isaga soo qaaday oo markaasi uu soo tahriibiyay dhinacaas iyo hoolka shirku ka socdo wuxuu sheegay labadoodaba in markaasi si xun loola dhaqmay wuxuu sheegay markii hore in ay caqabado soo gaareen intii ay soo socdeen markii ay shirka soo gaareen caqabado kale ku dhaceen balse intaas oo cambaarayna laba qabo madaxweynaha dalkaasi Djibouti ilaa iyo haddana kama hadal lagamana rajo qabo madaxweynaha Djibouti inuu isaguna sidaasi ku raaci doono madaxweynaha Soomaaliya oo cambaarayn doono falalkaas sababta oo ah Itoobiya iyo Djibouti ayaa marnaba aan saaxiibo isku dhaw taas oo kale ayna ka dhexdhici karin waxay ku kooban tahay hadda eedayntan iyo bahdilkan iyo Soomaaliya waxaana ay muuqataa isla madaxweynuhu uu bahdilka inuu qayb ka yahay ku dhacay maadaama uu ogolaaday madaxweynaha dhigiisa inuu gaarigiisa ku soo kaxeeyo oo uu soo tahriibiyo dhinacaas iyo shirka bahdilkan sabab uma noqon doonto Itoobiya oo kaliya balse waxa ay markaan u muuqataa madaxweynaha isaga inuu gacantiisa isku bahdilay qaranka Soomaaliyeedna uu ku bahdilay run ahaantii Itoobiyana ay markaasi guud ahaan marka la isu keeno bahdilkani iyadu ay dusheeda saaratay oo ay tahay mid furis bahdil iyadu toos ay u furisay oo ah markaasi inay shirka madaxweynaha ka hor joogsato iyo bahdil kale oo ay soo adeegsatay madaxweynaha Djibouti oo isaguna uu aqbalay labadaasi bahdil ay saaran ayaa meeshan ka muuqda waana midda musiibada weyn ah ee markaasi dhaawac lama filaanka ah keentay hadiiba ay dhici lahayd Itoobiya inay awoodaheeda adeegsatay oo madaxweynaha ay shirka u diiday dabcan waxay noqon lahayd dhaawac laga soo kaban karo bahdilkooda waxayna ku soo dhamaan lahayd madaxweynuhu inuu soo duulo caasimadda dalkiisa uu ku dhawaaqo in shirkaasi loo diiday inuu ka qayb galo balse hadda laba goor ayaad moodaa inay markaasi ku dhacday gacantaasi bahdilka ah Soomaaliya mar iyada gacanteeda isugu geysatay in la bahdilo iyo mar dhinac kale ay kaga timid oo markaasi awoodiisa adeegsanay oo ah dalkaasi Itoobiya haddaba waxa iyaduna aan isweydiin karnaa maxaa sababay bahdilka inta la eg inuu ku dhaco waftiga Soomaaliya runaantii arrimahan way fara badan yihiin marka xaqiiqada dhinacyo badan laga fiiriyo waa midda koowaad bahdilka noocan ah waxa keenay siyaasad xumada markaasi dawladda Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida aan sheegnay waxaana kow ka ahaa markaasi gabi ahaanba inaanay Soomaaliya qaabka noocan ah uga qayb gelin shirka midowga Afrika taasi haddii ay jiri lahayd siyaasad cad oo Soomaaliya ay ka leedahay qaabkaasi ma dhacdeen bahdilka intaan la eg waana markaasi midda asaaska u ah bahdilka intaan la eg inuu dhaco go'aanka madaxweynuhu uu qaatay ee ahaa inuu shirka ka qayb galo markaasi dal cadow ah lagu qabanayo sababta oo ah waxa la ogaa Itoobiya intaan iyo in ka badan baa inay la jeclayd oo bahdila inay ku dhacdo Soomaaliya balse Soomaaliya iyo madaxweynaheeda unbaa u baneeray baa la oran karaa inay bahdilkaasi ku dhacaan waxa isweydiin mudan oo iyadana markaasi muujinaysa siyaasad xumada hadda dawladda xilka haysa ee Soomaaliya intaas oo bahdila oo hadda ku dhacday waftigii madaxweynaha jamhuuriyadda iyo waxa ay ku bedesheen qiimaha ay kala leeyihiin tusaale ahaan dawladda Soomaaliya waxa ay ku dooday ama bilowgii madaxweynuhu uu sheegay in shirarkaasi muhiim yihiin oo laga baaqan karin ay yihiin shirar fursad u ah Soomaaliya oo mowqifkeeda ay ku gaarsiinayso midowga Afrika iyo caalamka kadib markii shirkan la yimid ee hadda ay ka qayb gashay Soomaaliya bahdilkan ay ku dhacday waxaad moodaa madaxda Soomaalidu inay ku adkaysanayaan markaasi khaladka siyaasadeed ee markaasi ay galeen oo keenay bahdilka noocan waxa ay ku doodayeen si la hadalka ay madaxda hadda shirka jiraayid ku qabteen inay muhiim ahayd wax kastoo dhacaba in waftiga madaxweynuhu ay hoolka shirku ka dhacaya galaan haddii marka aan isbarbar dhigno bahdilka aad iyo aad u xoogan ee ku dhacay madaxweynaha iyo waftigiisa oo guud ahaan saameyn culus ku leh qarannimada iyo karaamada Soomaaliya iyo hadiiba waftigu markaasi uu fursad u heli lahaa si nabadgelyo inay kulanka uga qayb galaan labadaasi faa'iido midka weyn hadiiba hadda inta soo bahdil ay qaateen waftiga Soomaaliya sida madaxweynuhu uu sheegay ay ogolaadeen iyaga oo loo diiday shirka inay markaasi ergada saaxiibkood madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ay qaateen oo dhinacaas iyo shirka u sii tahriibiyay markay afaafka gaareen la hor joogsaday oo iyadana caqabad kale la kulantay
intaas oo marka khasaare ah oo soo gaadhay madaxdaas iyo bal waxa aynu qiimeyn doonaa haddiiba markaasi madaxweynuhu kulanka yimid oo khudbad halkaasi uu ka jeeday ama se Soomaaliya halkaasi mowqifkeeda ka hadashay sida ay isugu dhigmaan qiimo ahaan ee ay isku dabooli karaan xarug dhacay khudbad kooban oo Soomaaliya mowqifkeeda ka jeediso inaanay macno badan sameeynin guud ahaan ururka midowga Afrika waa ka dharagsan yihiin xataa khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya khudbad kooban oo markaasi la jeediyo oo warbaahinta loo qaybiyo wax badan oo ay soo kordhinaysaa ma jiro kaliya waxa ay ku fiican tahay dhinaca quruxda iyo in Soomaaliya uu ka muuqatay fagaaraha shirka laakiin marka loo fiiriyo bahdilka iyo culayska iyo dhibaatada gaadhay qaranka Soomaaliyeed dhaawac ku dhacay ayaa run ahaantii jugtaasi ay ka culus tahay waxa laga faa'iiday oo sida hadda ay madaxdu ku doodayaan inay ahayd inay hoolkaasi galaan wax kasta dhacaan balse khasaaraha dhacay iyo bahdilka dhacay ayaa ka culus qiilna looguma helayo shirka inaan ka qayb galno unbaa ka muhiimsanaa in qaranka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed bahdil iyo khatar waliba intaa la eegay ugu bareeraan khudbad yar oo kooban oo ay ka jeedinayaan shirka labada maalmood oo khudbadaha ku kooban ee Afrika ay yeeshaan miyayna ka habboonayn in markaasi la daryeelo ama se laga hormariyo karaamada iyo qarannimada Soomaaliya iyo madaxdeeda waa su'aal dib ugu noqonaysa madaxda Soomaaliyeed ee hadda qiil ka dhiganaya waxaba muhiim noo ahay in hadiiba shirka naloo diiday aan walaalkeen Ismaaciil Cumar Geelle raacano shirka si aan uga hadalno si kasta ha noqotee iyadana waxay ka mid tahay siyaasad xumada madaxda Soomaalida ay hadda ku sii socdaan weliba xitaa iyada oo dhacdada aan foosha xun ay dhacday ay ku sii adkaysanayaan inay muhiim u ahayd inay khudbad ka jeediyaan halkaasi oo mowqifka Soomaaliya ka sheegaan dahaba ma saarnaa khilaafka hadda u dhaxeeya Itoobiya iyo Soomaaliya meel kastana way gaadhsiisay Soomaaliya ilaa iyo laga gaadho golaha ammaanka ayaa ay labada dal isla tageen balse waxa muhiim ah in madaxda Soomaaliyeed ay karaamadooda ilaashadaan shirarka ay ka qayb galayaan barnaamij iyo siyaasad u leeyahay waxa kale oo iyadana sabab u ah markaasi bahdilka noocan ee culus inuu ku dhaco markaa waftiga Soomaaliya ama qaranka Soomaaliyeed iyada oo si guud ahaan siyaasadda Soomaaliya ee dawladda hadda xilka haysa aanay lahayn mid caga badan ku taag wasaaradda arrimaha dibadeed oo markaasi waxtar leh dalka ilaa iyo hadda kaba jirto hadiiba ay magac ahaan u jirto shaqo ahaan iyo tayo ahaan markaasi ma muuqato wasaaradiyadu hawlaheeda u madax bannaan guud ahaan siyaasadda dibadda ee dalka Jangoys dhinaca kale waxa ay taasi u muuqataa siyaasadda dibadda lafteedu inay hoos tagto madaxtooyada Soomaaliya wasiirka hadii la magacaabana uu iskaba magacaaban yahay balse hadda uunaba wasiir rasmi ah magacawnayn ee uu magacaaban yahay wasiirku siisima taasina iyaduna waqtigaani firaaqaasi waxa uu noqonayaa siyaasad xumada dawladda hadda xilka haysa ee dhinaca arrimaha dibadda ka aradan ama se gaabiska ka waqtigan xasaasiga ah ee loo baahan yahay maadaama Soomaaliya ay dagaal diblomaasiyadeed la galayso dalka Itoobiya inay yeelato wasaarad adag oo arrimo dibadeed oo qorshayaasheeda leh ma jirto taasina meesha waa ka maqan tahay waxa ayna iyaduna sabab u noqon doontaa bahdilka noocan ee hadda dhacay iyo kuwa kale oo dhexda iyaguna ku soo jira oo kuwan ka sii culus waxa kale oo iyadana bahdilada noocan iyo siyaasadda Soomaaliya ee markaasi daala dhacaysa caga badan aan ku taagnayn kamid hadiiba xitaa ay dawladda Soomaaliya ama madaxtooyada ay siyaasadda dibadda ay hogaamiyaan ma jiraan qorshe adag oo hadda madaxtooyada iyo madaxweynaha Soomaaliya ay ka leeyihiin siyaasadda dibadda hore sidaan soo xusnay Soomaaliya hadda marka loo fiiriyo siyaasadda dibadda ma laha qorshe adag iyo barnaamijyo tayaysan oo ay ku kala saareen saaxiibada dhabta ah ee Soomaaliya ay leedahay kuwa markaasi cadaawadda ugu diiwaan gashan kuwa heerka dhexe saaxiibada koowaad ee Soomaaliya hadii ay khatar gasho markaasi u noqon doona boorta ay ku tiirsan doonto dhammaan qorshayaashaasi siyaasadeed ee adag hadda ma laha madaxweynaha xilka haya iyo dawladdiisu waxay u muuqataa siyaasadda dibadda ee dalka hadda inay ku dhisan tahay mala awaal saldhig ay u tahay Soomaaliya heshiisa dunidana la heshiisa Soomaali dunidana la heshiisa ayaa hadda siyaasadda Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh iskaga dhisan tahay ficil ahaan iyo dhaqdhaqaaq ahaan dal walba hadda Soomaaliya waxay la tahay saaxiibka koowaad dalalka caalamka ee siriixaya istaraatiijiyadaha wada kale leh ee mid waliba uu rabo danihiisa gaarka inuu Soomaaliya ka fushido Soomaaliya mid walba waxay ka dhigatay saaxiibkeeda koowaad xitaa hadda waxaynu oran karnaa Itoobiya oo Soomaaliya ay ku tilmaantay inay cadowgeeda tahay dhinaceeda kalena inay Soomaaliya iska aaminsan tahay inay saaxiibkeeda koowaad tahay taasi oo muujinaysa iyadoo madaxweynuhu uu qiray in Itoobiya cadowga koowaad tahay haddana inay saaxiibka koowaad iska noqotay oo madaxweynuhu uu ogolaaday shirka halkaasi ka dhacaya inuu ka qayb galo ugu yaraan uu sameyn waayay shirka in dawladdu ka qayb gasho balse wafti heer dhexe ah loo magacaabo waxa kale oo iyadana aan la kala ogeyn saaxiibada dhabta ah ee Soomaaliya Djibouti waa saaxiibka koowaad ee dawladda Soomaaliya leedahay balse dhinaca kale ayay ka tahay saaxiibka koowaad ee Itoobiya leedahay iskarabtaageedu ma muujinayo heer markaasi ay ku qaadan karto Djibouti saaxiibkeeda koowaad ee Soomaaliya
kamana hadli karto mowqifyada xasaasiga ah ee markaasi ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo kale ama se hadiiba Soomaaliya ay khatar gasho iyada Soomaaliya taasi ay kaga duwan tahay oo dhinaca Djibouti marka ay khatar gasho aanay adkaysan karin ayna go'aano adag qaadato siiba khilaafkii hadda dhex maray dhinacaas iyo Eritrea Soomaaliya dhexdhexaad kama noqon balse Djibouti waxa ay muuqataa mar walba xiriirkeeda istiraatiijiyadeed inay ka hormariso kan kale ee Soomaaliya طبعا حقنا waa u leedahay baa la oran karaa oo Djibouti hadda iyada waxa xiriirkeeda diblomaasiyadeed ama saaxiibkeeda koowaad ee lama huraanka ah ugu diiwaan gashay Itoobiya xaqiiqadaasi inay Soomaaliya dareento oo heerka ay Djibouti saaxiibtinimada ka taagan tahay ay xariiqdo waxay kamid ahaan lahayd siyaasadda Soomaaliya si fiican loo jaangooy balse taasina ma muuqato Imaaraadka ayaa iyagana aynu tusaale kale u soo qaadan karnaa ma yahay saaxiibka koowaad ee Soomaaliya taasina ma caddayn waxa ay kamid yahay Imaaraadku dalalka iyagana sida Itoobiya xadgudubka ku sameeyay qarannimada iyo karaamada Soomaaliya waxayna qorshayaashan hadda Itoobiya wado ku heshiis yihiin Imaaraadka iyo Itoobiya inay iyagu badaha iyo dhulka Soomaaliyeed iyo siyaasadda Soomaaliyeed kala qaybiyaan oo la wareegaan ayna qayb ugu heshiiyeen inay u kala goostaan iyada saasta ayadana siyaasadda hadda dibadda ee Soomaaliya waxay ku qotontaa in Imaaraadku uu yahay saaxiibka koowaad ee Soomaaliya waxaana uu taas dhigayaa ayay u muuqataa Soomaaliya dunida la heshiisa kuwaas iyo kuwa kale ayaa iyaguna jira oo dawladaha oo markaasi Soomaaliya aanu kala socnay طبعا siyaasaddaas ayaa iyana waxay u baahan tahay in Soomaaliya dib looga soco waana midda uu keenaysa ayaan uga soconaa baxdilka noocan oo kale ah inuu ku dhaco madaxda Soomaaliyeed iyo guud ahaan qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed oo sumcaddooda markaasi sidaas loogu tunto hadda guud ahaan siyaasadda Soomaaliya ma laha saldhig rasmi ah ee marka laga fiiriyo dhinaca dibadda waxay u baahan tahay haddii la rabo inay Soomaaliya ka badbaado baxdilada noocan iyo dhagaraha iyo khataraha loo maleegayo in la helo siyaasadda markaasi tayaysan oo Soomaaliya ay leedahay oo kala sooci karta cadowgeeda iyo saaxiibkeeda isla markaasina leh danaheeda siyaasadeed sida dawladaha caalamkuba ay u leeyihiin dano iyo masaalix gaar ah taasi ay wax ku qiimeynayaan waxa loo baahan yahay dawlad Soomaaliyeed oo masaalixda dalkeeda ka hormarisa masaalixda dalalka kale oo aan ku fikirin oo kaliya inay xiriir markaasi iskala yeeshaan oo ah dunida la heshiis dal walba oo soo bandhigta xiriir inuu la yeesho balse aan la ogeyn damaciisa arrimahaas oo dhan unbaa waxa ay keeni karaan Soomaaliya inay ka badbaado baxdilo noocan iyo qorshayaal kale oo markaasi xadgudub ku ah qarannimada iyo madaxbannaanida dalkan Soomaaliya laakiin hadda taasi ma muuqato waxa kale oo iyadana la oran karaa baxdilka noocan waxa iyaduna sabab u ah dhinaca kale dawlado kale oo la kulay arrimaha oo markaasi iyagu qorsheynaya in damaca Itoobiya ay hirgeliyaan iyagoo dhinaca kalena saaxiib kala ah dawladda hadda xilka haysa ee Soomaaliya taasi ayaa iyaduna noqon karta mar kasta baxdil noocan inuu ku dhaco madaxda Soomaaliyeed marba hadii loo soo marayo kuwa kale oo iyaga ay saaxiib yihiin ayna soo marayaan dhinacyada Soomaaliya ay u aragto inay cadow yihiin oo Itoobiya ugu horeyso inta badan waana hadda qorshaha socda ee aakhirka ay suurtagal tahay dabinka ugu weyn ee baxdilka Soomaaliya inay ku dhacdo shilkan hadda baxdilka aasikadiisa ayuu ku dhacay balse waxa muuqata inay kuwa kale dhexda ku soo jiraan haddana aynu halkaani ka sii sheegi doono marka ay soo baxaana aynu dib isugu soo laaban doono waana baxdilka ugu weyn ee hadda ku soo socda Soomaaliya ayaa ah qorshahan hadda dhacay tijaabada ah oo kale inuu soo laaban doono halka loo socdo ayaa markaan waxa ay tahay in Soomaaliya oo intaas oo baxdil ah iyo dhulbaaxooyina ay ku dhacday la keeno madasha wada hadallada ee Soomaaliya iyo Itoobiya si shuruud la'aan ugu dambeynta marka madashaasi ay isugu yimaadaan labada dhinac Itoobiya oo intaas oo xadgudub ku sameysay qarannimada Soomaaliya intaas oo baxdila ay soo gaareen madaxda Soomaaliyeed haddana xiriidho diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed oo isku soo dhaweyna oo aan sheegnay dalalkaasi labada dhinac ka shaqeynaya inay ka soo shaqeeyaan inay aakhirka xaalku uu ku soo dhamaan doono oo markaasi sida aan marar horeba xusnay ayuuna aakhirka ku soo gabagaboobi doonto baxdilkan ka sii xun oo Soomaaliya inay miiska wada hadallada soo fariisato shuruud la'aan ugu dambeyntina ay ku soo dhamaato xiriirkii labada dal ee Itoobiya iyo Soomaaliya iyo iskaashigii dhinacyada kala duwan ee ammaanka iyo saaxiibtinimada inay mudan tahay in la soo celiyo lagana hormariyo waxyaalaha khilaafaadka ee jira tan ayaa ahayd midda lagaga shaqeynayay caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa ee hadda uu shirku ka dhacay balse shilkan kadiska ah ayaa soo dhex galay wayna sii socon doontaa qorshahan hadda aan sheegnay ee ah intaasi la hirgeliyo waana budnaanta koowaad ee markaasi in la arko Soomaaliya iyo Itoobiya oo si shuruud la'aan miiska wada hadallada isugu yimid kuna heshiiyay markii hore sida ay heshiisu ahaayeen balse iyadana waxa ay noqon doontaa un nooc kale oo baxdilada soo socda hadiiba aanay hadda Soomaaliya wax ka bedelin siyaasadeeda oo aanay la iban siyaasad isku dheelitiran oo dhinaca dibadda waxa ay ku dambeyn doontaa waa taasi aynu kor ku soo xusnay